shacabka Soomaaliyeed oo maanta mahadcelin ballaaran u jeedinaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhaleeceen xooggan ay wajahayaan kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka ceeboobay kadib markii ay dowladda Eritrea soo bandhigtay kumanaan ka mid ah ciidankii Soomaaliyeed ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud xubno ka tirsan ee horey u sheegeen inay dhammaantood wada geeriyoodeen. ceeb iyo fadeexada ayaa ka taagan baraha bulshada waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wadanka Eritrea uu ku booqday kumanaan ciidanka Soomaaliyeed ah iyadoo maantana sidoo kale uu u madlan yahay inuu booqdo xerar ciidan oo Eritrea ay ku tababarayso ciidan kale. warbixinta galwareed oo aan ku eegi doono fadeexada ka taagan baraha bulshada mahadcelinta ballaaran ee shacabku u jeedinayaan madaxweyne Farmaajo iyo siday arrintani wax weyn uga bedeli karto nidaamka dowladda iyo dadku siday u jecel yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sheegareeya oo ku faafiya dunida meel walba ku tooran muuqaalka beejkeena galwareed sufro gareeya waa hagaag aan ku bilaabo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gelinkii dambe ee shalay booqday xerar ciidan oo ku taala wadanka Eritrea halkaasi oo lagu tababarayo ciidan Soomaaliyeed oo kumanaan kor u dhaafaya. xerada ciidankan markii uu booqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa baraha bulshada lagu baahiyay musawirro iyo muuqaalo laga soo duubay ciidankan oo si weyn uga muuqdo tababar ballaaran oo gebi ahaanba saameeyey sida ay ciidanka dowladda Soomaaliya haykalkooda u dhisan yahay. arrintani waxay fadeexad ku noqotay xubno ka tirsan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba madaxweyne Xasan iyadoo baraha bulshada lagu wadaagay muuqaalo madaxweynaha hore uu u baahiyey oo ku sheegay in ciidankaasi ay geeriyoodeen. fadeexada taagan ayaa waxaa ka mid ah in taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad markii uu ahaa sargaalka markaasi ka tirsan xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka iyo xubnihii mucaaradka ee dowladdii madaxweyne Farmaajo dhaliili jiray oo baraha bulshada ku qoray in kaliya 189 askari oo kaliya ay ka hareen ciidankii Soomaaliyeed ee Eritrea tababarka loogu qaaday kadib markii laga qaybgeliyay dagaalkii ka dhacay dalka Ethiopia oo ay halkaasi ku dhamaadeen. arrintaasi fadeexada baraha bulshada ugu weyn ay noqotay kadib markii in ka badan 5,000 oo ciidanka Soomaaliyeed baraha bulshada la iskula wadaagay. xaaladda ugu weyn ee dadka Soomaaliyeed hadda ay markaasi indhaha ku wada hayaan ayaa sida dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay uga galgalan karto fadeexadahan ballaaran ay wajahayso iyo sida ay shacabka Soomaaliyeed ugu qancan karto mar kale inay u fiirsadaan in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ahayd dowladdii ugu waxqabadka badnayd ee dalka soo marta. waalidiintii Soomaaliyeed ay siyaasiyiintu baraha bulshada ugu sheegi jireen in carruurtoodii ay geeriyoodeen ayaa iyaguna maanta yaxyax iyo xishooda u wajahaya. madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay socdaalka madaxweyne Xasan ee wadanka Eritrea waxaana lagu yidhi war madaxtooyada ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa markaasi kormeeray cutubiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalkaasi. madaxweynaha ayaa sanad sharafeed ka qaatay cutubyadan oo si gaar ah loo tababaray waxa uuna u korgalay xaaladooda nololeed isagoona warbixin ka dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta oo madaxweyne Xasan uga mahadceliyay booqashada ugu yimid ayaa lagu yiri warka fila Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa maanta inuu booqdo cutubyo kale oo ciidan Soomaaliyeed ah oo kumanaan kuwaasi oo markaasi ku sugan xeryaha kale ee ciidanka oo ay hadda tababar kale ku qaadanayaan. sheegareeya xogaan qeyb falan ugu wadaag aragtidina tan iyo koronto dambe nabadgeliyo.